taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ayaa si lama filaan ah u yimid magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. wararka naga soo gaadhaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in diyaarad khaas ahi ay saaka xilli hore garoonka diyaaradaha ee muqdisho kasoo dejisay agaasimihii hore ee nisa, kaasi oo uu ra-iisul wasaare rooble xilka ka qaaday kadib murankii ka dhashay kiiska ikraan tahliil. diyaaradda gaarka ah oo ka timid dalka turkiga, taasi oo ay la socdeen xubno uu hogaaminayay Fahad Yaasiin, ayaa soo caga dhigatay garoonka muqdisho waa berigii hore ee saaka, halkaasi oo ay ku sugayeen ciidamo gaar ah oo usoo gelbiyey dhinaca madaxtooyada. imaanshaha Fahad Yaasiin iyo xubnaha kale ee la socday ayaa ahaa mid qarsoodi ah, kuwaasi oo aanay ka warqabin xubnaha xafiiska ra-iisul wasaaraha oo horay u xayiray in diyaaradda sida Fahad Yaasiin aanay soo caga dhigan karin garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho. Fahad Yaasiin ayaa dib looga celiyey garoonka diyaaradaha ee Jabuuti 17kii bishan xilli uu ku soo jeeday magaalada muqdisho, iyada oo diyaaradda u saarnaa ee Turkish Airlines ay diiday inay soo caga dhigato magaalada muqdisho, taasi oo markii dambe dib ugu laabatay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo ay kasoo kicintay. xafiiska madaxweynaha ee muddaxileedkiisu dhammaaday ayaa tallaabadaasi ku eedeeyay Jabuuti, oo la rumaysan yahay inaysan wax shaqo ah ku lahayn, balse ay hay-adda duulista Soomaaliya uu amarkaasi ka soo baxay iyada oo tixgelinaysa amarka uga yimid xukuumadda. Fahad Yaasiin oo uu saaxiibkii farmaajo xilka qaadista kadib u magacaabay la taliyihiisa gaarka ah ee arrimaha amniga qaranka, ayaa la filayay inuu ka qayb galo shirkii golaha amniga qaranka ee uu ku baaqay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, si uu ugu soo bandhigo xog ku saabsan kiiska muranka badan dheliyey ee ikraan tahliil faarax oo lagu tuhmayo Fahad Yaasiin iyo saraakiil ka tirsan hay-adda nisa iyo madaxtooyada. balse dib loo dhigay kadib markii Fahad Yaasiin 18kii bisha laga celiyey Jabuuti isagoo oo dib ugu laabtay Istanbul, sidaasina uu kaga baaqday safarkii uu ku iman lahaa muqdisho si uu uga qayb galo shirkaasi golaha amniga. ilaa hadda lama oga in Fahad Yaasiin ugu ogolaansho ku yimid magaalada muqdisho iyo in kale, hase yeeshee waxay wararku sheegayaan inuu si dhuumasho ah ku yimid iyada oo aanay cidna ka warqabin, marka laga reebo ciidamada ammaanka ee madaarka kusoo dhaweeyey. waxaana la sugayaa saacadaha soo socda war horle oo cusub, kaasi oo ku saabsan shirka golaha amniga qaranka ee uu warbixinta kiiska ikraan tahliil ka horjeedin lahaa. dhinaca kale, dhexdhexaadintii farmaajo iyo rooble ayaa xalay dib looga bilaabay magaalada muqdisho. dhexdhexaadinta oo laga dhex waday madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble ayaa xalay dib u bilaabantay kadib hakad ku yimid maalmihii lasoo dhaafay. sida ay wararku sheegayaan, waxaa socda isku dayo ah in heshiis la dhex dhigo labada dhinac ee iskhilaafsan. dadaaladan ayaa waxaa wada guddoomiyaha golaha shacabka ee wakhtigiisu dhammaaday Maxamed Mursal Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, oo ay weheliyeen 5 wasiir iyo 2 wasiir ku-xigeen oo ka tirsan dowladda federaalka. dhinacyada ayaa markii hore la kulmay madaxweyne farmaajo, iyaga oo ka dhageystay waxa uu doonayo iyo qodobada uu ka tanaasuli karo, si heshiis looga gaadho muranka sii daba dheeraaday ee u dhexeeya isaga iyo rooble. kulanka farmaajo kadib ayaa dhinacyadaasi waxay haddana la kulmay ra-iisul wasaare rooble, iyada oo markii dambe guddoomiye Mursal iyo madaxweyne Qoorqoor ay ku hadheen xafiiska ra-iisul wasaaraha. ilaa wareedyo u dhow wasiirada qaybta ka ah waanwaanta ayaa sheegaya in hawsha dhexdhexaadinta iyo u kala dabqaadista farmaajo iyo rooble ay tahay mid bilow ah oo aanay filayn in si degdeg ah guula looga gaadhi karo. waxaa sidoo kale jirta inay yar tahay rajada laga qabo in heshiis laga gaadho muranka labada dhinac, maadaama oo qodobada laysku hayaa ay yihiin kuwa aanu dhinacna ka tanaasuli karin. sida horeba u dhacday, labada mas-uul ayaa ku adkaysanaya rabitaanka ah inay ka midho dhaliyaan doonistooda iyo inaanay u muuqan in laga adkaaday. arrintan ayaa waxaa sii adkaynaya qodobka la xidhiidha kiiska ikraan tahliil, kaasi oo ay adag tahay in uu ra-iisul wasaare rooble ka tanaasulo, halka uu madaxweyne farmaajona doonaya in la baabiyo kiiskaasi. sida oo kale ma cadda sida uu rooble uga tanaasuli karo xubnihii uu magacaabay sida wasiirka amniga, taliyihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa oo hadda si toosa u shaqeeya.